marka social media maadaama sidiisaba iska yahay wax macnaha inta la soo galo xilligii la rabo laga bixi karo wixii la rabo laga dhex oran karo wixii macnaha la samayn kara laga samayn karo waan soo samayn ma fahanti waan niri waxaan odhanaynay waxaan soo samaynay soo samaynay aduu adduunyaan rognay ma fahanti marka haddana waa suu ninkaas sheego 2023 baa lagu jiraa adduunya isbedeshay waan weynaanay garhkaa maan lahayn maalintii hore na arkaysa ya tiktok tanaa ka dhex hadlayna mayna jirin macnaha waxaan dadkan imika suuqa ku jiray macnaha leeyahay waa caan mayna jirin marka wax aan soo marnay kulley maadaama waxba ka bedeli karayn waxaan oran karnaa un wixii soo marnaya dee oo samaynaybe hadda macnaha raaligelin ma bixin karnaa haddaan wax qaladnay de anoo dhalinyara marka haddaan wax qalday anoo cabdirsaaqa waan kaa raaligelin haddaan wax qalday mise waxaan qalday raaligelin ma ka bixin karaa hadalku u saxee soomaali baa kugu adag yahay haddaan wax qalday oran wax qalday واسكسي والله هذا طول soo dhacay waxaan qalday soo dhacay baa ka bixinaya adiguna bal 2-3 baa odhan lahayd maya horta dadka waa isku diraan wanaagana ma jecla wax kastana meeshaan waa iska cusbaayeen waqti anigu aan xaalad adag ku jiray baad iga faa'iidaysan jirtay laakiin hadda maadaama waqti dheer laga soo wareegay wixii hore dhacay horta ma soo noqonayaan laakiin mar haddaad leedahay wixii dhacay waan qalday raaligelin ma ka bixin karaa jawaabtu waa haa aniga waxaa tahay wiilkaygoo kale igu khaldamay mana kula yaabayo dadkan IT-ga hadda bartay iyagoon aqoon baad adigu taqaanay caawa laga bilaabo waa ku cafiyey waxba kuma haysto wiilkaygoo kalaa tahay waa kuu ducaynayaa wixii horoo dhacayna annagoo dhan baa qalad ku wada jirnay way dhacdaa baan leenahay horaa nooga soconaynaa waana ku jeclahay hooyo raallina ahaw waana wax walba waa wax qoran imika markaan lifeka soo geliyay dee maskaxdeeda kuma jirin maamuliyun baad isla hadlaysiin oo macnaha wax aan ogaa maaha marka sidaasunbay taasina u qorneed macnaha waxaan soo samayno o dhan amaani ahaato ama wiil kaloo sawran soomaaliya ahaado ama dadka nimka lifekana daawanay ahaadan ama adiga ahaato macnaha qof walbaba wuxuu soo sameeyey ama wuxuu samayn doono ama wuxuu hadda samaynayo waa wax qoran marka waxaa muhiimadda ah un in aan garanayno waxaan soo samaynay inay qalad ahaayeen iyo inay sax ahaayeen iyo in hadda wixii lasoo sameeyey macnaha lama soo celin karee in hadda la iscafin karo macnaha waa wax qurux badan waan ku faraxsanahay 100% macnaha dee wax kale odhan kale ma jirtaba dad waxaan ahayn macnaha 2017 inay ahayd malaya macnaha Soomaaliga wax bilbilaamay 16 endigiisa baan soo galay laakiin 17 bay ahayd markaad bilowdeen imikan waxaan marinaa 2023 macnaha way qornayd inaan xilligaa social media dhexdeeda aan macnaha intaan aniguna wax soo jarjaro wax sameeyo adiguna soo hadashid tanna way qoranto maanta anoo live soo galay baad macnaha live isku dhex aragnay marka muhiimadda ayaa ah macnaha dadka Soomaaliyeed intaan u sheegayno waxa weeyaan haddii aad arki jirteen wax qaldan ama wax mar kastaba qaldamaya waa la sixi karaa macnaha mar walba qofkii qaldamay chance uu haystaa uu wixii ku sixi karo marka wixii anagu aan soo sameynoo dhan nagu dayin anagu xilliga soo wareersaneen anorta ma jeceli wixii hore soo sameyn jiray in lagu daydo waxa hadda laakiin wixii hore in lagu daydo ma jeceli wixii markaa hore soo sameyn jirnaa ku dayina dad badan oo imkaan iyaga sii daran waa la helaya waxyaabaha sameynayaan oo macnaha wuxuu sameynayo dad aad iska aflagaadinaya ama iska caayaya laakiin anu waxaan oo laa xilligii hore waxaan sameyn jiray ha ku dayina sababtoo aynan ku faraxsanin macnaha waxa lagu garanayaa channelkii kama dhaxelaysa video ama malyuu kaga hadlayo macnaha kuma faraxsanin macnaha waan gartay inay wax qalad ahaayeen macnaha markaan bilaabay inaan ka saaro fiidiyoyaasha waa wax aan ogaa oo macnaha waxaas dhahay waxaan waa qalad waamaan ka saaro waxaan malaa 3 sano waxba horta uma qabin maamuli dadku maqayaan ma malaa weligay wallahi wax inaan ani for fun inaan wax iska sameeyo mooyaane laakiin wax aan maamulin u qabay oo ugu talagalay inaan sameeyo macnaha ma jirin just for fun dhalinyarnimo aan iskaga jirnay waxaan dhahay waxaan waa wax entertainment dadka uu ku qosliyaa samee iyaduna macnaha hadda way ogtahay wayna maqlaysaa macnaha markii saddexaad in leeyahay raalli noqo sababtoo ah waxaa la yidhi raalli noqoda aad bedisid
ما dhankaa ka dhamaanaya dee waa shaah sonkor badan lagu daraa ama cunto milix badan lagu daro oo kale noqonaysaa mafahanti marka intaasaan oran lahaa maamulyuun de insha allahna iminkana asxaab baa nahay waa isfilo garanaasaan arkay iminka insha allah anaa waa sii sheekaysan doonaa waxyaaba badan oo khaldanaana waa sixi doonaa maya hooy waxba hadda kuma qabo wixii horena way dhammaadeen wax dambe cusubna allah wixii hore oo dhacay way dhaceen haddana waxba kuma qabo annagoo nool haddaan adduunka isku cafinin wax ka wanaagsan anugu dadka uurka wax ugu qaada ma ihi laakiin waan iska cartaayo waan iska bahalkeysmaa qof markuu victim intay yahay haddana la dulmaayana dhibaatadiisu leeyahay wixii dhacay dhace mana soo noqonayaan 2023ga new year soo dhawow soo dhawaada kulligiin oo dhan waa hooyadiina ahay waa idin soo dhaweynayaa wixii hore way dhaceen marka aad baan hooyo kuu salaamaya wixii dhacay dhace dadka inta xaasidka oo jecel inay dadku kala fogaadaanna waxba ma tarayso inay dadku waxa fiican isu soo dhawaadaan laakiin aniga hari waayey anna waa diiday inaan social media ka baxo wax iga qaadi karaan inaysan jirin waa la ogaaday haddana biis baan ku jiraa qofkii dambi iga galayna asagaa gilti ah anoo dambi la iga galay baan waxaan ku leeyahay maantayto wixii dhacay cafiskaagi waa qaatay inaad mataqaan anna waa ku cafiyey adna raalli ahaanshahaaga waa qaata mar walbana dhalinyaranimo inay 20 jir baa la yiri intuu geedka boodu tala ka boodaa marka mar walbaba wixii hore u dhacay adna maanta adalti baad noqotay waa soo weynaatay social mediana waa baratay waqtina uma haysid hadda taraamo iyo shida uma haysid life-kaaga ceyrsanaysaa anigana biis baa la isiiyo albaabkayga waa laga wareegay oo qofna hadda ima hortaagna marka wixii dhacay way dhaceen way dhacdaa baa looga baxayaa faagtigu waa intaas aad baa ugu faraxsanahay hadda halkee joogtaa horta hadda Afrika joogtaa mise halkee hadda ku sugan tahay Nairobi ma la joogtaa kaalay casuun war waa si wanaagsan maamadu waa inay casuuntido wallaahi soo kuma dhaarka dhexda waa ugu dhaaranaya waa qasab in aan meesha aad joogtid aduu anaa ku imanay meesha aad joogtid baan gacantidaas ma aragtid aniga Bambaasaan deganahay maamadu hadday Nairobi kula joogto waxaad samaysaa u tag raaligeli si fiican u casuul si fiican u soo dhawee meesha ku raaligeli hadalkana la soo dhameeyo brada waalid weeyaan ixtiraamkeeday mudan tahay meel walbana lagu ixtiraamo waalidka meeshay joogaan waxaasna waa dhacay raaligelin qurux badanaad waad bixisay oo loo wada jeedo dad fara badnaa ay ku daawanayaan marka maama adigana annaga xataa waa ku raaligelinaa ma garatay dhanka diisla anagu ka soconna oo asxaabtiisa ah marka waalid baa tahay waalidkuna waa waalid uun waa kiina dhaloo kale uun buu yahay ma garatay marka ixtiraam baad noo mudan tahay mar walba marka saasaan kugu raaligelina maama insha allah waa is arkaynaa adduunkan waa laga tegayaa wax joogaya malahan aniga anoo uurka ugu hayana ma dhimanayo adigana anan ku cafiyaan rabaa dadkuna inay ku dhahaan maama milyuun baa waxaas dhihi jirtay ma rabo adduunkan wax kastaa dhici kara waana ku cafiyey intaan ku habaarayna raalli ka ahaw intaad wax iga geysatayna anaa ku cafiyey tankiyuna hooyo macaan idinka dhalinyarada meesha ku jira wiilal iyo gabdhana aad baa u mahadsantihiin wanaagga wax ka fiican malahan in wanaagga laga shaqeeyo oo wixii dhacay laga gudbo ma soo noqonayaan wixii dhacay marka hore ha loo socdo anna ma rabo inuu wiilkaygu maalin walba fiilkiisa dareemo thank you hooyo boqolkiiba boqol hooyo intii ugu dambeysaan kooranayaa ah horaa loo yiri magaratay anaa hore looma hadlo kolley hadal waa dhammayseen maasha allah maxaa la dhahay drislena maaragtay hadduu qaladkiisii qaatay oo maaragtay ninka ragga waxaa loo ogyahay inuu qaladkiisa qaato raaligelin bixiyo taana maaragtay maasha allah waxaan leeyahay wuu ku ammaanan yahay maamadana sidoo kale maaragtay maadaama ay cafisay kolley waxay tiri hadal ku soo celisay dhowr jeer waan habaari jiray kolley maamadu habaarkeedu ma dhacaa leeyihin magaranaysaa odayaasha buu habaarkoodu inta badan dhacaa hooyadu waa naxariis badan tahay way qalbi fiican tahay habaarkoodu ma dhaco marka waxaan leeyahay insha allah ducadooda dhacda marka ninka u ducee dad badanna tusaalaha u noqoto kolley Soomaali baan nahay oo maaragtay dee social media qaybta xun baan ka isticmaalnaa insha allah qaybta wanaagsanna waan tusi doonaa haddii la yiraahdo raaligelina waan bixinaynaa anaguna haddaan nahay allah thank you aniga drislana waa is arki doonaa haddii ilaahay isu kaayo qoro waa joogaa magaaladan kula joogaa maamo alxamdulilah ilaahay baana qadaray inaynu caawada hadalno mahane
life baan mar dhow ka baxay waxaan rabay inaan iska seexdo marka waa balwad meeshan waa laysaga dhex wareega marka waqti walba ilaahay wuxuu qadaray waa imaanaysaa mana islahayn wax damaad fiirfiirin doontaa marka ka seexaan ku iri wixii hore dhacay haddana insha allah waa idin salaamayaa waana idin jeclahay horeyna u socda dhalinyarada wanaagsan oo walaalaha iyo saaxiibadaayana aad bay u mahadsan yihiin oo wanaaga ka shaqeeyay oo maamulyin hala soo qabtay yiriyo taageerahayga ah adigana taageerayaashaada marka dadka wanaagsan baa badan alxamdulillah ilaahay noo badiyo inta wanaagsan oo wanaaga jecel waa maasantahay baaba waa maasantahay sidoo kale insha allah ka seexo dambuye insha allah ayo maxaa